السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaaleyga marna asxaabteyda qaaliga ah soo dhawaada meel kastoo aad ka joogtaan dunida daafeeda isku soo noqod wanaagsan alxamdulilah. muuqaalka loo qeyrkiisa wato kana duwan muuqaaladii hore sida ciwaanka aad ka arkayseen toddobaadkan iyo howlihii aan qabtay oo isugu jira routine iyo vlog ayaa idin duubaya. marka ugu horeysa markii aan soo kacay sida laga rabo qof walba muslim waajibna ku ah salaad ilaahay markii aan dukaday kadib waxaan akhristay kutubka quraanka kariimka ah. subaxii wixii aan ka gaaray haddana mashquulsanahay xataa ugu yaraan bag ama haaf ama maqro wixii aan ka gaaray markaas akhrinaya. fargalkaas tasbiixdaan isagana waxaan jeclaa mar walba inaan wato kadib meeshaan aan idin fiirinayo anoo laba geesood habeen walba markaas saxana madaxayga waxaa jeclaa saas inaan u kala xiro haddana shaleynaynin xataa inaan saas u kala xiro inuu tinti iga jabto oo ku seexdo ma jecli. kadib waxaa u soo kacay quraacdii u soo kacay xagga quraacda soo aadaa ka wadaa caday salaadii wixii markaas soo dhameeyay kadib waxaa soo aaday quraacdii ukun iyo barbarooni iyo basal sida caadiga ee loo sameysto. ana waxaa sameynaa marka taawadan oo waxaa isticmaalaa sidanan steak oo kale camal waaye laakiin taawo bakaara lagu sameeyay waaye birtaawadan u jeedin waxaa rabaa marka sidii malawixii oo kale inaa u dubto ukunto ma fahmaysiin maano sida malawixii oo kale inaa u dubto yani inaa qaada ama farkeeto inaa isticmaalo oo furfuro marabi saas inay ugu balbalaarnaa taaraba kor iyo hoosna guduud ay iga noqoto mideeda kale si fiican u soo garaac xumbo inay aheeda dareemaysiin haddana cusbo bas ku soo darsaday walaa filfilaana ku soo darin walaa xawaajiyaana ku soo darin walaa sokoraana ku soo darin inta badan bahaaraadka ma jeceli ilaa jikinka iyo waxyaabahaas maahan iyo hilibka. waa u jeedin quraacda hadda waa soo diyaarsaday caanalo hal koob sidoo kale jab oo moos iyo ukuntii aan soo samaystay ukuntana laba xabay ahayd waxay ku soo aadan maalinta maalin aan dalbanayay zoo productigeeda lambarkeeda meeshaan aan idiin soo saaraya gabdhaha yaryarka ah iyo wiilasha inta loo mari karaa waa saliid nafaqo iyo shaambada way ii taala nafaqada iyo saliid aga maqneed kadib waa soo baxa bakaaraha soo aaday waxaa arkay wiilashan oo haayo simkaaro santal oo free ah hal xaba ayaa ka soo qaatay waxaa imaaday dukaankan farshaxanka oo aad ka helaysid wax walba oo farshaxan haddii aad tahay dadka sameynayo ubaxa alaabtii ubaxa aad ka sameyn lahayd ayaa lagu hayaa haddii aad tahay gabdhaha ku shaqeysta ama raba inuu bilaabo farshaxankan boorsada gacmaha lagu sameynayo dharka gacmaha lagu sameynayo koofiyadaha fanaanadaha waxyaabahaas oo dhan haddii ay tahay ama loo yaqaano crochet loo yaqaano waa ka helaysaa alaabihii loogu talagalay haddii ay ahaan lahayd dunta haddii ay ahaan lahayd cirbada ama maxaa la yiraahdaa wixii lagu sameynayay ama binki lagu qabanayay markii aad sameysanaysid boorsada ama dharka maxaa la yiraahdaa crochet laga sameynayo ama gacanta lagu sameynayo. soo dhawaada maxaa kale marka meesha yaal dukaanka anaa ka socnaa macnaha anaa ka tarjumooyo oo ka socdo soo maahan maxaa kale laga helayaa haddii aad tahay harqaanle gabar harqaanle ama wiil harqaanle waxa way ku anfacaysaa ayadana waxyaabo badan oo u baahan tahay dumanka xataa ugu yar dharka lagu talo waa ka helaysaa way yaalaan. ana marka waxa ka soo doontay alaabo yar ka soo doontay soo alaabaha crochet ka mid waxa kale meesha ku arkay in laga heli karo maxaa la dhahaa resin artiga waxyaabaha lagu sameeyo maxaa la koolooyinka resin artiga lagu sameeyo haduu ahaan lahaa koolada cadaanta mid biyaha mid caanaha iyo mid biyaha iyo sidoo kale maxaa kaloo la dhihi karaa biraq. haddana maalin kale bakaara ku soo noqday waxaa ka soo doonay alaabtana ujeedin waxa saan u laalaaban huudheeyay waay lagama sheekeyn kara ma la dhaho wallahi maasha Allah ani waxaa ka soo doontay dharka oo dhan horta maamadana ka soo doontaa oo caruurta maanta marka hadda waxaa ka soo doontay buumooyin ama nigisyo ma la dhahaa nigisi iyo garama ka soo doontay bibiga xanaanada ay ku geegeysto surwaalka hoostiisa u galiyay ma fahanteen marka wallahi dharka heesadan isha waa uga jiitay waa dhar qurux badan oo qabow oo maasha Allah yaa qofkii u baahan wuu soo weydiin karaa waa ku xirayaa insha Allah xayisiisay wadaaniya la isdhihin dhaba iga tahay soo dhawaada yaa akhay. Never force anyone to choose me. If you think you can find something better elsewhere, then go ahead. I'm not holding you back. Life's too short to hang on to someone who's not sure they want to stay. I believe in freedom and the truth of feelings. If you must stay, let it be. Your heart tells you this is where you belong. Not because I asked you to. I want to be a choice. maalmo marka waxaa ku jiray oo isbuuca dhexdiisa oo aan galay live oo TikTok productyada malaabadaas aniga ahaayo boorsooyinkaas buraashadilka ay ku cadeystaan caruurta macjuunta saacadaha caaga oo cagaarka iyo maxaa la dhahaa oranjiga way dhamaadeen laakiin intaas kale naga helaysaa
marka la soo dhawaado live-kaas faraha ku fiiqfiiqay waa duubtay oo ii duubma soo maahan saas darteeda inta usoo dhigay marka adna inta wax kaa qanciyo way isoo weydiin kartaa lambarkayga ku siinaa meeshaas igala soo hadlaysaa WhatsApp-ka. Waxaa soo gaarnay gabagabadii vlog-ga. Ukuntaan la ii keenaa guriga la igu keenaa balxada laga keenaa ukunta digaaga caadiga ah waaye qiimo raqiisna waa la iga siiyaa marka maalinta aan duubayay yani waxyaabihii oo isbuuca ku soo aaday ay kamid ahayd ma fahanteen vlog-gan iyo routine-kan qayb labaad uu leeyahay qaybtiisa labaad la socda insha Allah.